waa hooyo wiilkii ay dhashay gaari qarax ah la hortaagan yahay oo ku calaacalaysa alla hooyo hay dilin aadna ha iska kay dilin ayagana hayga dilin oo barbaarintaadii iyo dhibkii aan ka soo maray hay noogu bedelin in aad baaruud nagu gubtid. sheekadan oo diyaarinteeda uu leeyahay wasiirkii hore ee warfaafinta Soomaaliya Cusmaan Abubakar Dube waxay iftiiminaysaa xanuunka iyo urkutaalada ay weheliso dhacdooyinka adag ee maalin kasta dhaca oo ubad la dhalay la barbaariyay oo xilligii lagu dheefsan lahaa jooga argagixisadu qaraxyo ugu soo dhiibto waaridkood iyagoo uga dhigaya in ay ku janno tagi doonaan. sheekadan waxay ku socotaa Abu Yaxya oo loo garan og yahay Maatalaaye waxayna ku bilaabanaysaa sida tan. gaalada muxaaribiinta ah iyo mushrikiinta cadowga ah ee Quraanku sheegay waxa uu haystaa inay yihiin dadka labisan ee dhex lugeynaya laamiyada xamar oo ay hooyadii ku jirto. waa isgoyska dabka ee magaalada Muqdisho sanadkuna waa 2014 xilliguna waa 5tii galabnimo. isgoysku waa mashquul inkastoo xilliga rawaxaada markasta oo mashquul yahay haddana galabta waxa uu sii dheer iyada oo berri Ramadaan ay tahay oo bishu kow noqon doonto. wadadan waxaa ka tilaabaya hooyo dhibban oo dhabarka ku sida alaab culus. labada gacmood waxaa u buuxa oo ay ku sidaa dambiil iyo darmuus shaax ay ku soo karisay. Maatalaaye oo magaciisa maqaarsaarka ah uu yahay Abu Yaxya waa wiilkeedii curada ay dhashay hooyadan oo ay ula baxday Cumar. waxay ku soo korisay tacab dhib badan iyo rafaad kadib markii uu aabihii geeriyooday isagoo 3 jir ah. waxay ka soo rawaxday goob dhisme uu ka socdo oo shaaxa ay ku gadaysay ilaa saaka waa berigii. gurigeediina waxaa ku sugaya 5 caruur ah oo yaryar oo ay dhashay oo 2 Abu Yaxya ay ku dhalashay xigeen 3 gabdhoodna ay u dhashay odageedii dambe ee guursaday isna uu ku dhintay qaraxii lagu baaba'ay ee hargaha iyo saamaha. Abu Yaxya ama Maatalaaye waxa uu soo fuulay dalcadda wadada ka timaada suuqa Bakaaraha waxa uuna soo taagay isgoyska dabka. waxa uu rabaa inuu toos u baxo kaligiina ma ahane waxa uu dusha ku sitaa 7 tan oo qarax ah. waxa uu ku wajahan yahay dekedda weyn ee Muqdisho oo ah halka quudiso cuntadana ay kaga degto malaayiin shacab ah oo ku kala go'doonsan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Abu Yaxya se waa degdegsan yahay sida uu aaminsan yahay jannadii waxa uga harsan inta uu dekedda ka gaarayo haddii laga celiyo isgoyska dabka ayaa u ah yoolka labaad. waxa uu wataa baabuur candhameydla ah oo ah kuwa xamuulka qaada. waa raran yahay waa habaysan yahay askarta isgoyska ayayse is haystaan kala wareeg ayay ku celcelinayaan iyaga oo diidan oo ka celinaya 3 jid ee kala ah kan number 4 aada kan dekedda iyo kan madaxtooyadaba. hadda waxaa hormaraysa Maamo Faadumo waa hooyadii oo aan 4 sano oo duurka ku jiray is arkin. laakiin Abu Yaxya Maatalaaye xusuusta hooyadii habeenna maskaxdiisa kama bixin. muxuu u xasuusan waayay weligeed iyada oo aan isaga wax siisa mooyaane iyada afkeeda waxba may gelin oo wax ma cuni jirin ilaa cunugeeda Cumar uu baahi beelo. darmuuska shaaxa ah ee ay dusha ku sido ayay ku soo korisay. indhihiisii kulkululaa ee aad moodaysay ugaarsada arkay ugaar cayilan ayuu askarta hortaagan sidii shabeel aad u xanaaqsan indhihiisa kulul ugu eegayaa. indhaha kulkulul waxa uu ka keenay sheeka baraalay looga sheekeeyay in Cabdalla Cazaam oo ahaa aasaasihii fikirka jihaadiga ah uu gaalada ku eegi jiray indha kulkulul oo kuwa shabeelka oo kala ah. Maatalaaye Abu Yaxya maadaama loo diiday inuu gudbo batanka qaraxa ayuu rabaa inuu taabto. isaga iyo naxariisi way kala dhamaadeen. kufaarta mushrikiinta Ilaahay lacnaday ee Quraanka uu ka akhristay waxa uu haystaa inay yihiin muslimiinta isu diyaarinaya bisha barakaysan ee Ramadaan ee berri bilaabanaysa. weligii gaal muu arag laakiin wuxuu aaminsan yahay in dadka jidka Maka al-Mukarrama isticmaalayo oo dham ay diinta Muxamadiyada ka laabteen oo ay murtadiin yihiin. waa 16 jir aan weligii helin fursad waxbarasho iyo naxariis bulsho. waxa uu sharaabay oo aad u akhristay dhambaalada mala awaalka ah ee laga soo waariday Afghanistan, Yemen, Iraq, Suuriya iyo meelo kale oo ka waramaya meyd dhintay oo haddana qoslaya malaa'ig dagaalamaysa cadow la laynayo oo dhulka ku sii daadanaya wax dilayna aan la arag. udug iyo barfuuna ka soo baxaya guri ku dumay dagaalyahano Daalibaan ahaa. riyooyin iyo qisooyinku tirkuteen ah oo dhalinyaradu ay uga sheekeeyaan dhalinyaro ka soo dagaalantay Yemen, Sham iyo Ardul Khurasqaan. khuraafaadkaas iyo propagandadaas Carabiga ku qoran ee diinta uu haysto iyo nashiidooyinka aan macnahooda fahansanayn laakiin laxankooda loo qurxiyay ee cibaadada uu haysto baamaankiisa iyo maskaxdiisa ka buuxa. laakiin hooyo Faadumo sidaa ma ahan. qalbigeeda waxaa buuxiyay dareen waalidnimo, dareen derisnimo, dareen Soomaalinimo, dareen nabadeed oo qalbigeeda degay. weligeed deriskeeda maysan ku eegan baahi duug iyo tacsi kama baaqan iyada oo weligeedba muruqmaal ah oo xoogeeda maasha. inkastoo aanay hanti lahayn haddana gurigeeda waa deriska kan ay biyaha cusbada iyo cajiinkaba ka soo helaan oo aan maya lagu oran.
waxay aaminsan tahay derisnimo dadka qabiil uma kala saarto Soomaalida xaafada degan oo dhan bay aaminsan tahay inay hooyo u tahay waatan hadda jidka lugeynaysa hooyo Faadumo way daalan tahay waa sidii saaka alasay 6 subaxnimo ay uga baxday guriga midigteeda ayay fiirinaysaa maama Faadumo baabuurka la leeyahay kala wareeg ee lagu qaylinaya ayay eegaysaa indha aqoon durugsan isu leh oo ka fog indho ilaa iyo qalbiga iyo wadnaha isku xiriirsan ayaa isku dhacaya waa hooyadii hooyo orod ayuu oranayaa alla waa wiilkaygii Cumar 4 sano may arag habeen kasta isaga oo jooga oo intuu shaqada ka fariisiyay lacag u soo shaqeynaya oo cunto u soo iibiyay ayay ku riyoon jirtay eedo baabuurka uu qarxayaa ee ka fogaaw ayay askartii ku qaylinayaan aragtay in baabuurkan qarxayaa yahay kan wiilkeedu saaran yahay ma saarne ee qarxwada ayuu ka yahay allahoo yahay dilin aadna iska keydilin ayay leedahay iyada oo u sii ordaysa dhinaca baabuurka qaraxa ee wiilkeedu qaraxwadaha ka yahay hooyo Faadumo hadaladeedii ugu dambeeyay inta aanay gacanta la gaarin baabuurkii qaraxa waxa kamid ahaa hanadkaygu curade hubka laygu dhiibow maxaan hagarbaxaagii holoc iyo dhib ku maray maxaan horumarkaagii kun habeen u taagnaa maxaan horakacaagiyo hanaqaadkii sugi jiray maantana halaagiyo hadimada naftaydiyo waxaa tahay hadaydii allahoo yahay dilin aadna iska keydilin kuma waaye haydilin haki socodka gaadmada Soomaalidu hal weeyaan waa wada hilbiye jiir muslim wada hanuunsane iyagana hayga dilin allahoo yahay isdilin hal doorkan jeclaaye horarku iga jiito maxaan caano kugu habay timo hoolif ka jaray maxaan goor habeen iyo hurdada kaaga soo kacay maxaan noqo hogaanshiyo kugu iri haliyay qaran maantana hubkaagi iyo qaraxaad habaysaa in wada halaagiye allahoo yahay dilin adna iska keydilin kuma waaye haydilin haki socodka gaadmada Soomaalidu hal weeyaan waa wada hilbiye jiir muslim wada hanuunsane iyagana hayga dilin allahoo yahay dilin inta ayay sheekadeena noogu soo gabagabowday aad iyo aad ay u mahadsantihiin muuqaalkan si share gareeyo oo gaarsiiya saaxiibo badan adinkoo aragtidiina iyo dareenkiina noogu reebaya qaybta commentiga laagta ugu roonaada muuqaalkan inaad share gareedaana mar kale ha ka faqiirinina sheekadan iyo maansadanba waxaad ka helaysaan bogga Mangalool ee suugaanta Cusmaan Abukar Dubbe waana bogga 21aad aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin